بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن اهتدى بهديه وتبع سنته إلى يوم الدين. الأخ مهدي آدبو محسيحي xuquuqda xoogsatada iyo waxa islaamku uu ka qabtay, waxa uu ka qabo iyo waxa uu ka qabtayba baynu kaga hadlaynaa qormadan ama barnaamijkan. marka hore intaan la gaadhin xuquuqda ay leeyihiin dadka xoogsatada ahi, aragtida مفهوم العمل في الإسلام أو الغبطة xoogsiga shaqaysiga waxaasoo dhan indhaha islaamka uu ku eegayo iyo sida uu arko. marka horeba alcamal ama hawsha ama shaqadu waxa weeye asaaska noloshan alxayaat addunya aynu ku noolahay. dunidu sideedaba adduunyadu waa hoy shaqo, hoy hawleed weeye, raaxo iyo nasasho looguma talagelin, ilaahay uguma talagelin. dadka ka doonaana waa ku ibtiloobayaan, halka aakhiro ay ka tahay daaru xisaabin wa jazaa, meel laysku xisaabinayo layskuna abaal marinayo. qof waliba iyo cid waliba wixii ay hore marsatay abaalkeedii ay helayso. sidaa daraaddeed laba weji ayaa camalku ama howlqabadku uu leeyahay sidiisaba. waxa weeye camal saalix iyo camal hayru saalix, labadaa wuxu dhexeeyaa ma jiraan. ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaa qur-aankiisa kariimka ku leeyahay man camila saalixan falinafsihi waman asaa'a fa calayha. qofkii camal wanaagsan ama howl wanaagsan qabtaa falinafsihi abaalkeeda naftiisaa le, isagaa leh. waman asaa'a fa calayha, qofkii camal xun ama mid aan ilaahay raalli ka ahayn ku tallaabsada ama yeelaana, isaga ayaa culayskeeda iyo dembigeeda naftiisaa leh. ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmaddiisa iyo ludfigiisa waxaa ka mid ah qofku marka uu camal saalixa hawl wanaagsanoo ilaahay raalli ka yahay uu guto ama qabto, abaalkeeda ilaahay wuu u laban laabaa, waa u toban laabaa, ilaa uu gaadhsiinayo 700 dicif, 700 oo goor inuu u laban laabo iyo in ka badanba oo ilaahay un subxaana wa tacaala ogyahay. marka camalka saalixa ahi waxa weeye sidaa macaanka iyo wanaagga leh ayaa ilaahay u muneeyey. waxa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ina leeyahay waqul icmaluu fasayara allahu camalakum warasuuluhu walmu'minuun. howlgala wax qabta, wixii aa qabateen iyo howlgalkiinna waxaa arkaya allah subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta. dabcan ilaahay waa alcaalimu bikulli shay, rasuulkiisuna calayhi salaatu wasalaam waa kaa ina soo gaadhsiiyey ee ummadda ilaa an taquuma asaaca risaaladiisu soconayso. mu'miniintuna waa kuwa mukallafiinta ku ah. markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam xijaaftay iyo wixii ka dambeeyey
ayniga ka dambeeya iyagu inay dusha ku sidaan oo ay gaadhsiinayaan fariinta alle adduunyada oo dhan. marka diin islaamku qur-aanka kariimka iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax kasta waxay u dhigeen asaasiyaad sees adag ama seesyo adag oo lagu gudagelayo wixii howla oo haddii si wanaagsan loogu socdo oo ikhlaas iyo niyad yacni dar alla uun ah loo gudagalo waxtar iyo nafci fara badan u yeelanaysa dadkaa macaamilaya, kaa loo shaqaynaya iyo kaa shaqaysanaya iyo mujtamaca intaba in ay wanaag iyo khayr fara badan u keento. ilaahay subxaana wa tacaalaa sunankiisa iyo nidaamyada uu ugu talagalay in kownkani uu ku socdo waxaa ka mid ah in dadka uu kala kor yeelay, fadala bacdahum calaa bacd, oo laakiin cidina aanay qadayn, cid lagaga tegey aanay jirina meel uun haddii wax ka dhiban yihiin meel kale ilaahay uu uga dheegayo. waxaad arkaysaa maalan dad maalan dee aragga ka iimoobay, maqalkoodii baa koraya oo in aanad adigu maqlayn iyo si aanad waxu maqlayn bay u maqlayaan, waa wax la ogaaday. mid baa laga yaabaa inuu maqalka ka iimoobo dabeedna xifdigiisa kale iyo sida uu waxu fahmayo qalbigiisa si kale u shaqaynaya. sidaa daraaddeed ayaan dadku sinayn maskax wanaagga, hal abuurka, xoogga iyo tabarta jir ahaaneed iyo naf ahaaneedba waa lagu kala maaragtay horeeya, waana lagu kala koreeya. ilaahay baana subxaana wa tacaala sidaa u qaybiyey oo qur-aankiisa kariimka ku yidhi ahum yaqsimuuna raxmata rabbika naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati addunya warafacnaa bacdahum fawqa bacd darajaat liyattakhida bacduhum bacdan sukhriya waraxmatu rabbika khayru mima yajmacuun. waa aayadda 32 ee suuratu zukhruf oo ilaahay leeyahay yacni raxmadda ilaahay ma iyagaa qaybinaya ibni aadan iyo wixii la mid waa maya. ilaahay baa subxaanahu wa tacaala maciishadda iyo sida la kala yahay iyo dakhliga iyo qof walba waxa uu helayo iyo waxa ka maqan iyo waxa uu kala dheer yahay u qaybiyey. ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka darajaad ku kala dhigay, kala koreeya, si ay u suurowdo in qaarkood ay kuwa kale ciidan iyo shaqo ay u qabtaan, ay ka beegsadaan. marka tamargalka iyo howlqada ibni aadamka waxaad arkaysaa laba weji ama laba hab oo si macaan oo aada u wanaagsan isu miisaamaya inuu ku xidhan yahay. waxaad arkaysaa maalan haddii yani sida wanaagsan loogu tallaabsado kala duwanaanshaha iyo wax isdhiridda qofba qofka kale uu wax dheer yahay in ay si wanaagsan oo miisaaman u shaqaynayso. waxaa laga yaabaa qof ilaahay inuu geliyo maskax waxyeelaadinaysa oo arkaysa ama ka fekeraysa ama hal abuuraysa wixii ku lugla xagga baayac mushtariga, xagga dhaqaalaha, xagga sida mujtamaca loola macaamilayo ee loo maaragtay maaraynayo. laakiin qofkaasi laga yaabaa markay timaado howlqabadkii ahaa in gacan iyo xoog loola dhaqaaqo aanu karayn
qof baa laga yaabaa tabartiisu ay aad u oo ama waayeela ama sidiisaba aan xoog badani ah oo xagga jidhka u dhalan ama howlkarnimada iyo u adkaysashada ay wax badan ka maqan yihiin laakiin xaggan alla u geliyey kii kalena intaa kan ka maqan alla siiyey labadii marka la isu keeno oo si wanaagsan oo yacni ilaahay loogu dhowaanayo ama ilaahay lagu xusuusanayo loo falgeliyo loo howlgeliyo waxay noqonayaa wax aad iyo aad mujtamaca iyo dadka qof qof laba laba iyo wadar wadarba wax weyn u taraya marka mid waliba labadaas midna howlgelayo midna loo hawl qabanayo oo hawsha la fulinayo manfaceeda iyo maamulkeeda uu leeyahay labadaba mid waliba waajibaadna wuu leeyahay xuquuqna wuu leeyahay diin islaamku markaas uu bayaamiyey arrimahaas qur-aanka kariimka ah sunnadii rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh ayaa ah tilmaanta iyo jidka ugu habboon ee loo raacayo waxaa markaa rasuulku calayhi salatu wasalaam inoo sheegay camalku inuu yahay cibaada alcamalu saalix cibaada qofku matalan ninka reer mas-uulka ah ahligiisa afadiisa iyo carruurtiisa dadaalkaa uu dadaalayo ee uu u shaqo tegayo ee laga yaabo in uu hawl xagga gacanta ama qabanayo xamaalid qabanayo ama mid kale oo dilaalid iyo wax isku hagaajin qabanayo ama xafiisuu ka shaqaynayo ama sanca yaqaan uu yahay oo gacanta iyo maskaxdaba ka shaqaynayo hawshaa uu ku jiraa si uu reerkiisa iyo ubadkiisa quud xalaala ugu soo shaqeeyo waa cibaada waxaana rasuulku calayhi salatu wasalaam inoo sheegay in ay jiraan dembiyo bini aadanka uu geli karo wax walbana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u sameeyey dembiyadaasi habkii qofku uu dembi dhaaf ku heli lahaa ama salaad ha noqoto soomid ha noqoto istikfaar ilaahay yacni la weydiisanayo dembi dhaaf ha noqoto xaj ha noqoto intaasoo camal oo wanaagsan oo dembiye badani ay ku maydhmaan oo ku hadhaan waxaa inoo sheegay rasuulka calayhi salatu wasalaam inay jiraan dembiyo aanay goynayn salaaddii goyn mayso soonkii goyn maayo xajkii goyn maayo laakiin waxaa goynaya oo dembiyadaasi maydhaya oo ay ku hadhayaan qofku ama ninku mas-uulka ka ah matalan dee reer iyo qoys dadaalkaa uu u dadaalaya ku dhididaya ku hawshoonayo si naftiisa iyo ahalkiisa afadiisa iyo ubadkiisa uu ugu soo shaqeeyo quud xalaala dembiye taas ku hadhay ayaa jira hadda maxaa goyn waayey salaadii soonkii xajkii istikfaarkii ilaahay uu lahaa ilaa uu dembi dhaaf waxaasoo dhan bay ku hadhi waayeen laakiin waxay ku hadheen oo ku go-een dadaalkaas quudka xalaasha ah uu ugu soo tabcay usoo shaqeynaya waa halkaa martabada sharafkaa leh ayaa camalka ama howlgalka iyo shaqada islaamku uu geeyey waxaa jira markaa xuquuq islaamku uu dejiyey oo islaamka ka hor cid ku tallaabsatay aanay jirin islaamka kadibna qarniyo badan markii lasoo gudbay wixii islaamku diin islaamku uu jideeyey oo waajib ka dhigay falidoodana uu bayaamiyey inay tahay dhowaansho alla loo dhowaanayo ka tegiddeeduna ay tahay yacni wax ilaahay kaa fogeynaya waa goorma
1400 سنة كهر بو بيامي لغونا سعودي لنا فلي قوليها ندم بي غارهارا قلباتكو حقوق شغالو ولي هي iyo dawladooda iyo waxa ay xoogsadaan inaan lagu dulbeen waayo dawlad baa la gaaray waxaana loo maray dagaallo boqolaal kun ay ku tageen oo la isku madhay markii la isla daalay ayaa la maxaa inoo dana waxa ka mid ah islaamku in uu xafiday oo u dhowray dadka xoogsatada ah xuquuqdooda sharaacadu markaa islaamku waxa ay keentay mabaadi' fara badan oo lagu damaanad yeelayo lagu hubinayo xuquuqda dadka xoogsatada ah waxa ugu weyn ugu horeeyana waxa weeye shaqada uu qabto qofka xoogsatada ah waxa uu ka helayo ajrul aamil oo marka horeba shardi in shuruud lagu galo uu bayaamiyo islaamka shuruudda mar haddii la galona aanay u bannaanayn qofka loo shaqaynayo shuruudihii uu ogolaaday uu la galay dadka u shaqaynaya ama qofka u shaqaynaya in uu meermeeriyo ama leexleexasho iyo ma garanaysaa inuu waxaan la dhahdo khamkhamidda marka afka maaragtay magaalada lagu hadlayo inaan ay bannaanayn hadduu sidaa yeelana ay tahay dulmi waayadii hore wixii ka horreeyey islaamka shaqadu sida ay u qabsoontaa waxay ahayd qofka in laga dhiganayo midiidin oo xitaa xoog forced labor waxaa la yidhahdaa islaamka ma banaano qof xor ah oo ikhtiyaarka inta laga qaado la qafaalo oo la yidhahdo sidaa ku shaqay markii maalan ingiriiska waxaa lahahdaa waatuu badda oo dhan mar dunida dee u xukumayay maraakiibta meel walba gaadhay ee australia gaadhay ee amerikooyinka gaadhay ee meel walba dadka ka shaqaynaya inta la yimaado dhul ama beeraleya ama magaalooyin ama tuulooyin oo nabad loo joogo ayaa dhallinyarada tamarinaysa oo dhan mar keliya la duubaya dabeedna markabkaa laga buuxinayaa saasaa ay qasab ku tahay inay markaas ku raacaan maraakiibtu qaar bay sidaa kula degi jirtid oo yani marka laguu sawiro ama laga sheekeeyo ama yani warbixin laga bixiyo yani murugo weyn aad ka qaadayso akhriga aad waxa akhriyayso amaad yani warkaas saacadiga ku jiray marka ummadaha hore addoonsi iyo qafaalasho iyo yani tunsiin qofka lagu mididiminayo ay ahayd halkan laakiin waxay noqotay islaamku wuxuu ka dhigay sharaf iyo kor qofkii caamilka ahaa ee shaqaysanayay in uu leeyahay sharaf iyo sarrayn aanu lahayn qofka aan shaqaynayn wuxuu soo maray rasuulka calayhi salaatu wasalaam nin cibaadaysanaya oo intaa cibaado uun u fadhiya marka uu weydiiyo yaa ku masruufun wuxuu yidhi walaalkay oo shaqeeya ayaa ii soo tuura maaragtay waxa aan ku noolahay wuxuu u sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi walaalkaagaa shaqaynaya ayaa kaa caabidsan kaana fadli badan waa halkaas waxaa ka mid ah waxa uu qofkaasi shaqaystay in loo dedejiyo in badan baad meelo badan ku arkaysaa dad
shaqaystay hawshii ay qabteen oo haddii la doono laga dafirayo ama aan la wada siinayn ama in loo toorelanayo dee intaasaa la hayaa inta kale dee ama sug ama waxaasoo dhan ma banaana wuxuu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ucطu lajiira ajrahu qabla an yajifa caraquh waa xadiis uu wariyey ibnu maajah raximahullah qofka shaqaynaya ajiir yani shaqo loo dirtay siiya waxa uu shaqaystay ee uu leeyahay qabla an yajifa caraquh hawshii markuu qabtay ku hawshooday iyo ku dhiiday dhididkaasi intaanu qallalin engegin siiya culimo badan baa xadiiskaa ka hadashay qaarkood waxay ku tilmaameen inuu yahay xadiis aan xoog badnayn oo daciifa oo ninka soo wariyey daraaddii wax laga sheegayo laakiin waxaa jira axaadiis kale oo ka xoog badan oo isla halkaa xadiiskaasi wax marinaya alimaam albukhaari raximahullah waxa uu warinayaa ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaal rasuulku calayhi salatu wasalaam inuu yidhi qaala allahu allaa yidhi ilaah baa yidhi halaahatun ana khasmuhum yowma alqiyaama saddex noocoo dadka ah rabbi baa odhanaya allah subxaana wa tacaala anaa yani ay naga dhaxaysaa dood iyo xisaabtan anigii subxaana wa tacaala rabalkown ahaa ayay dhexdayada taallaa oo la xisaabtamayeen waxa weeye rajulun acطaa biya uma gadar ucطiya biya uma gadar nin magaca alle wax ku qaatay magaca allena ku ballan qaaday inuu soo celiyo uma gadar dabeedna khiyaamo galay oo wuxuu soo celiyo leexleexday wa rajulun baa'a xuran fa akala hamanahu qof xor ah oo aan addoonnimo soo marin oo sidiisii xor u ah intuu ka xoog bato ama khiyaameeyo dabeedna iibiya dabeedna wixii uu iibka yani gooyey cuna subxaana allah halkaa macnihii waxaad ka garanaysaa fi lislaam alasaasu huwa alxuriya ibni aadamka asaasku waa xor baa leeyahay watuu lahaa sayidina cumar mata stacbatum nnaasa waqad waladtum ummahatum axraara qof walba hooyadii isagoo xora bay dhashay sidee baa addoon dadka uga dhigan karta sidee baa markaa u suurowday in haddana fi lmujtamacaat alislaamiya dad la yidhahdo waa addoonoo dad leeyihiin ay jiraan sifo keliya ayay ku iman jirtay oo ah in dagaal la galo dabeedna gaaladii muslimiinta la dagaalamaysa dadkii ay dagaalka maxaabiista dagaalka ay qabteen markay iibiyeen oo addoon ka dhigeen inay jawaab u noqoto iyagana kuwa laga qabto in la iibiyo laakiin xagga islaamka waxaa jira intaasoo waddo oo kala jaada oo qofku hadduu dabinkaa addoonnimada galo inta ilimood ama irdood ee u bannaan ee uu ka bixi karaa badan xaggaas ma jirto mujtamacaadkan muslimka ahayn waxaa kaloo ka mid ah dadkaa loo dardaar wariyey ee rabbeeyey annagaa hawle naga dhaxaysaa maalinta qiyaame rajulun istaajara ajiiran fastawfaa minhu walam yucطihu ajrahu nin ama qof kale ciidansaday ciidan ka dhigtay hawshii uu u dirtay uu u abiyey oo u dhammays yeelay
dabeetana uu u diiday oo siin waayey wixii uu xaqa u lahaa ee uu shaqaystay saddexdaaba ilaah baa toos ula yani maaragtay macaamilaya ula xisaabtamaya marka waa dee hawl adag man kaana raxmaanu khasbahu qofka yani qof yani ka ku doodaya uu yahay rabbi subxaana wa tacaala waa la qiyaasi karaa halka uu ku dambaynayo allahuma salli calaa muxamed waxaa ka mid ah xuquuqda uu leeyahay qofkaas xoogsatada ahi in waxa uu qabanaya ay yihiin wax munaasib ah oo aqoonteeda uu leeyahay awooddeeda uu leeyahay qof yani kuulinimo ama inuu gacanta kaaga shaqeeyo ay ahayd haddaad tirada maye laydhka iyo electricityga laydhtriga de isagiina waa dilaysaa waxaa laga yaabaa de inuu waxaanu garanayna faraha la gal wax ku noqdo camalkiina iyo shaqadii hawshiina waa ku baytimaalaysa waa ku baylahaysaa waxaa jirta qofka in la siiyo shaqadan uu qabanayo baaxaddeeda iyo laxaadka ay leedahay iyo inay islahaadaan usi dhigmaan waxaa la siinayo qofka hawl adag bacadkaa ka shaqaynaya hawshoonaya ku haraadaya ku maaragtay rafaadaya iyo qofka hadh fadhiya ee aan hawl badan gelayn inay isku yani mushahaaro noqdaan waa wax aada iyo aada u adag in loo kordhiya waa dambe markii qolyahan reer galbeedku dee ay sancada iyo dunida maamulkeedii ay iyagu u bateen dan baa waxa ay badday in ay la macaamilaan dadka hawsha adag qabanaya marka waxaad arkaysaa marka warshado oo kale laga shaqaynayo qofkaa gacanta ku haya birta iyo dabka iyo meesha kulul ku jira ee ah technician ka gacanta ka shaqaynaya farsamo yaqaanku wuu ka mushahaaro badan yahay injineerka xafiiska ama halkaa soo fadhiya ee dusha uun ka tilmaamaya sidaa ha la yeelo sidaa ha la qabto halkaa sidaa laga yidhaahdo halkaa ha la mariyo leh iyo ninkan biyo culusta ugu jira ee dabkii iyo birtii iyo hawshii kana in badan kaa gacanta ka shaqaynaya marka macnihi waxa weeye waxa isleh wixii uu qabanayay iyo waxa uu ka helayo waa goorma laakiin in badan markii yani halgan fara badan iyo hawl badani ay ka gashay waxa xaq uu u leeyahay qofka howlqabadka ama shaqaynaya howlgelaya in uu isagu doorto ikhtiyaarka waxa uu qabanayo isaga la siiyo maxaa taqaanaa waxaa waxaad ii qaban kartaa sidaa maxaynu ku heshiinaa halkaa ay marto oo aqoonta uu leeyahay waayo aragnimada uu leeyahay isla mar ahaantaana aan la saarin culays aanu qaadi karayn shaqadu hadday 8 saacadood tahay waa inta la sheegay ibni aadamku averageka marka la isku celceliyo inta uu si wanaagsan wax u qaban karo dadku waa kala karti badan yahay waa la kala adkaysi badan yahay dad baa in badan oo ka badan ku dari kara laakiin intaa loogu talagalay wixii dheer inay dheeraad noqdaan oo uu helo waxa ay u geynayaan iyo in aan dadka yani waa tabaaragtay laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha laha maa kasabat wa calayha maktasabat ilaahay subxana wa tacala inoo sheegay nafna
wax aanay qaadi karayn ilaahay ma saarin mana saaro rabbigii abuurtay markaa haddii sidaa uu maaragtay u gartay ibni aadan kale wax aanu qaadi karayn ama u qalmin uu dusha ka saaro ma bannaana waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida abu hurayra uu warinayo uu sheegay oo uu yidhi lilmamluuki yani wakhtigaa aan sheegayo oo wakhtiga ay jireen mujtamacyada adduunka oo dhan dad xorriyaddoodii waayey oo yani nasiibkoodu uu noqday qof kale inay milkigiisa galaan oo uu yeesho qofkaa la leeyahay buu haddana yidhi rasuulka alai salaam haddana hawsha loo dirayo waxa weeye xaq wuxuu u leeyahay cuntadiisa xaq wuxuu u leeyahay hugiisa xaq wuxuu u leeyahay wax aanu karayn in aan laga doonin inuu sameeyo oo lagu igbaarin ama lagu sandullayn sidii dhici jirtay meelo badan oo dhulkan dee america ama erikooyinka north america iyo south america labadaba waxa ay ku dhismeen waa dhididkii iyo dhiiggii ummadihii faraha badnaa ee malaayinta gaadhaya afrika qasabka lagaga kaxaystay oo qaar in badan siday hawshii u wadeen ay naftu kaga baxday aan kuma ahaynay in doora ah taasoo kale ma bannaana waxa uu leeyahay alimaam ibnu xasm kitaabka almuxalla dowladda waa dowladda islaamka waxaa ku waajiba in ay u diyaariso qofka xoogsatada ah ee shaqaynaya cunto ku filan alghidaa alkaafi walkisaa alkaafi walmaskan alladii yaliiqu bih intaaba waa in loo helaa oo xaqu u leeyahay qofka shaqaalaha waa hugii iyo hoygii iyo cuntadii intaasibana meel kale ka iman maysee mushaharada la siinayo ajarka uu ku qaadanayo hawsha uu qabanayo waa in ay tahay mid kaafiyaysa macnuhu waxa weye qofkii waa in la siiyo wax ku filan oo uu yani quudan karo huuban karo hoy u noqon kara intaaba haddii aan intaa la yeelin oo sharciyan aanu u helin oo aan la siin yani mushahaaro u goynaysa intaasoo dhan waxaa arrintuu noqonaysaa buri dulmi waa dulman yahay qofkaas shaqaynaya haddaanu shaqada uu qabanayo aanay u goynin oo aanu ka helin isaga iyo reerkiisuba waxa ay quudanayaan waxa ay huwanayaan iyo hoyga ay gelayaan intaba waxaa ka mid a xuquuqda islaamku uu siinayo qofka howlwadeenka ah ama shaqaalaha ah xaq alcamal fi araaxa nasasho ayuu xaq u leeyahay markuu muddo wadaba inuu break qaato nasto in aan dusha laga saarin hawl iyo shaqo uu la daadubo oo dabeedna markaa uu ka ciba kari waayo marka dambe ama caafimaadkiisa waxyeesha uu marka dambe ka dhigta qofkaas qof iimoobay oo aan shaqaynba karayn marka wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa kale walaa tukallifuuhum maa laa yutiiquun dadka idiin shaqaynaya ama mididinka idiin ah ha saarina ha ku kallifina
wax awoodooda ka baxso aanay kari karin. marka wixii markaas qofka ka dhigaya inuu hadhow tamarin kari waayo ama uu shaqayn kari waayo marka horeba waa mamnuuc, xaaraam weeyaan in qofka dusha laga saaro wax hadhow awoodda iyo tamarinta uu u leeyahay inuu howlgaloo shaqeeyo wax yacni dhibaato u keenaya oo tamargab u keenaya marka horeba in lagula macaamila waa xaaraan. wuxuu u leeyahay waatan imika dee fasaxa had iyo jeer bitajriba baa lagu gaadhay qofku toddobaadkiina inuu fasax helo, sanadkiina mar uu fasax helo si ay u suurowdo in hawsha ay socoto. waxaa ka mid a xaqa uu leeyahay qofka caamilka ama shaqaynaya in dhankan loo shaqaynayo qofkan loo shaqaynaya uu oofiyo wax allayaala wixii shuruud ahaa markii hore la kala galay oo aanu midna ka leexleexan. haddii uu damco inuu ka meermeero ama ka leexleexdona marka waa dulmi, dulmigana mar walba cidhibtiisu oo waxaan la mahadin. waxaa ka mid a waxyaabaa laynoo diiday ee shareecadda islaamka xaaraanta ku ah in qofka duruufihiisa dala eegto oo laga faa'iidaysto. qof aada ugu baahan maanta wuxuu dhadhamiyo ama gurigiisii wuxuu geeyey oo dabka la saaro ood aragto inuu u baahan yahay in la bakso markaa shaqadan uu qabanaya matalan waxa ay matalan ay tahay matalan inuu $10 ama $15 inaad tirahdo wuu u baahan yahay bakas oo adeer dee adaa u baahane $5 dee ma ku shaqaynaysa 15 baynahay oo uu yidhahdo dee haa lagu baahan yahay. baahida uu baahan yahay in lala eegto oo xaqiisa sidaa lagu waasiyaana waa dembi weyn, waayo laa darara walaa duraara buu yidhi rasuulka alayhi salaam. waa qaacida fiqhiya bay noqotay. qofka waxa loo qabanaya iyo ka qabanaya midna inan waxyeello aanu geysan isagana aanay waxyeello ku iman. waxaa masalan xaaraan ah qofka markuu tamar gabo ama waayeelo ama xanuunsado isagoo kuu shaqaynayay inaad tidhaahdo dee qaban kari maysa shaqadii, waad weynaatay, waad gaboodaya naga tag, ama dee waad xanuunsanaysaa ee waxaad yeelaysaa maaragtay dee nabadgal qof kaloo noo qabta ayaanu baadi doonaynaya. waa mamnuuc iyaduna. rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalin buu wuxuu soo maray nin awr duquubay oo tamar beelay doonaya inuu gowraco. markaasuu hi ka daa, akalta shabaabahu xataa idaa cajiza aradta an tanxarahu. awrkan markii uu tamarinayey ee uu shaqaynayey oo qaalinka yar ahaa eed tiranaysay eed ku guuraysay eed wax walba ku qabsanaysay dhallinyaranimadiisii shabaabkiisii baad u cuntay buu yidhi awrkaa. maanta markuu uu tamar gabay oo waayeelana waxaad doonaysa inaad gowracdo ka daa. sidii ayuu markaa ku daayey. marka waxaa ka mida oo kale xuquuqda uu leeyahay qofka shaqaalaha ahi in magaciisa iyo sharafkiisa dhadig iyo labkuu doona ha ahaadee la dhowro oo aan lagu tacadiin, in aan loola macaamilin sidii qof adigu aad leedahay ama midiidin ay waajib ku tahay inuu wax walba kuu qabto siduu doon loola hadlo maya, ma bannaana.
qofkii sidaa yaalana dulmi iyo dembi ayuu geysanaya. rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadka u shaqaynaya hadda isagu hawsha u dirta u qabaanaya siduu soo dhaweyn jiray, iyagu gacanta la geli jiray, sixniga wax la cuni jiray, wuxuu ku caawin jiray xitaa hawsha ay qabanayaan hadday ku badato. marka hore waa tuulaa qof haddaad u dirataan ha saarina, dushiisa ha saarina culays aanu qaadi karin. hawsha hadday ku badatona caawiya oo la qabta. waa sunne ma garanaysaa wanaagsan oo rasuulka calayhi salatu wasalaam inooga tegey. in badanna aan arkay dad badan oo soomaalideenna ah oo sidaa wax u qabanaya oo qofkii u shaqaynayey la shaqaynaya hawsha ku caawinaya. waxyaabaha aan bannaanayn waxaa ka mid ah qofka kuu shaqaynaya inaad gacan ula tagto hadduu yar yahay oo kale oo wax ma garanaysaa dee si aad saluugto sidii wuxuu qabanayey, ama dee marmarka qaarkood dee cadhada kuu geysaata war waxan oo aad gacan u qaado ma bannaana. haddii ay dhacdoba oo qofka kuu shaqaynayey gacani kaa gaadho magdhowi markaa leeyahay shareecaddu ay u qiimaynayso oo yacni jidh ahaan waxa gaadhay keliya aan ahayne sharaf ahaan iyo naf ahaanba weerarka aad ku qaaday ama gacanta aad u qaaday waxay u geysanaysaa ay maaragtay eenka. waxaa ka mid ah waxyaabaha ay xaq u leeyihiin dadka ma garanaysaa shaqaalaha ahi in ay u dacwoon karaan oo u ashtakoon karaan garsoorka haddii ay tirsadaan in laga gardaran yahay ama xaqoodii la duudsiyey. waa u bannaan tahay. mid baa markaa la isweydiinaya waxaan la yidhahdo shaqo joojinta ama istarayga si loo helo xuquuq maqan, ama waxay isleeyihiin shaqaaluhu idinka maqan yihiin inay shaqada u joojiyaan alidraab can alcamal waa bannaaye. culimmadu waxa ay sheegeen haddii mushahaaradooda oo kale iyo xuquuqda ay leeyihiin leexleex la geliyo inay u bannaan tahay iyaguna inay shaqadii joojiyaan. laakiin waxyaabo badan oo ma garanaysaa iminka dee aynu dunida ku aragno shaqaalihii baa shaqadiisii baa la leeyahay way soo bannaan baxayaan inay dhibaatooyin kale markaa geystaan ama wax jajabiyaan ama meeshii ku duulaan oo wax u geystaan ama dadkiiba wax yeelaan. taasi dee waliba bannaana, laakiin xaqooda ka maqan shaqada inay u joojiyaan ilaa ay soo noqonayso wixii ay lahaayeen ay u soo noqonayaan ay helayaan waa mashruuc, way bannaan tahay xagga islaamka. intaas markaa ayaynu ku soo gabagabeynaynaa.